السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بقى مهد له وحن كترنا بشي قيرات رمضانك. إلهي وحن كبر يا قف والبو إسلامه ما دابه رمضان وقد ما يهي لحبري أو كليحة ما شاء الله يعني قيرك طبنك دنب إلهي ده هنقدم بدافو دنبيه ده ندن إلهي هدميو طبنك دنب هنوغا دمي دنبي جودن ما شاء الله طبنكي دنبان كل حجرنا سيدا دوقتين وردقة إيو صلاة إيو محايا هاي توبة ربك آن ودنه أو محايا أن إلهي يعني إلهي كبر يعني إنه أولا هرت أنا إنه دم بدافع وربك سبحانه قادر كان نحريستيسه جنديسه ونوغو بشاريو الدنيا دنا عريس قف والبو سو وجه او اسلام انه الهي كدل قاده ايان ugu duceynaya waxaan rabaa in aan si qalbiyana duca aniga qalbiyana aan u duceeyo dadka aniga ila soo hadlo snaapka aan rabaa caawina in la qaybsado oo aan inii faa'iideeyo iyo dhibaato aniga igu dhacda inaan niila qaybsado rabaa insha Allah inta aan khibrad u leeyahay oo ilaahay ugu ogyahay waayo waxna waa waxad ilaahay agtiisa iyo dadka walaalaha aad ajir uga raadsanayso waxna waa waxad iska hadlayso tani waa qalbigayga tani waa xanuun nafsadayda la soo darsay waxaan jeclahay in aan ku iraado ilaahay waxaan awalan kaaga baryayaa rabbiga subxaana qaadirka oo awood leh maadaaba aad tahay ummadayna maxamed sallallahu alayhi oo aad tahay adoontii alle iyo adoonkii alle waxaan kaaga baryayaa xanuunka aniga i haysta inuuna kugu dhicin awalan in waxa aan arko isdhaafyada badan oo waalida ku sugan inuu ilaahay kugu soo wajihin in aan caruur laga qaadan hadii laga qaato ugu horeysana hal masalo ayaan kaaga digayaa walaashay Soomaaliyeed ama qof kasto Soomaaliyeed adigoo sharciga dabada ku haysto maadaaba aad qaxootita wadankan lagu keenay xaquuq aad leedahay xaquuq bini'aadanimo aad leedahay xaquuqda qaxootinimada aad leedahay xaquuqda qof intuu aad leedahay oo hooyanimo ayaa haddana dhibaato weyn lagu ay ku soo wajahaysaa cidnaha aaminin aan horta Allah ahayn ko waxaad kaloo talada ilaahay tala saaro waxaad talada la wadaagtaa haddii lagu suubiyo sharciga dad yaqaano ko midda labaad erayada badan iska hadalka badan wuu ku dhaawacaya wuu ku dilaya waxba kuma taraa waxaan oga digayaa dadka Soomaaliyeed qofkii ilmo laga qaato ha soo wicin ha u keenin maskaxdeeda qofkaas ma degana markaas ha u keenin barbaleen waayo in lagu waalaan rabaa waxa lagu diraa istaalka waalida waxa lagu dirayaa si fiican ay dhageyso nafs adigoo caafimaad qaba shaki lagu galina xaquuqdaadi la raba in la xaqiro laakiin meel kasta kama jirto meelaha qaar ayay ka jirtaa dadka qaar ayaa la kulma sida anigoo kale waayo war sharcigii adoo raali ka ah oo dawladii ku keensatay oo bini'aadanimada ku cizeysay adoo hoos fadhiyo ayaa qof aan midibkaada ku qanacsaneen ayaa wuxuu rabaa inuu ka gudbiyo fiiri wax aan ku qalmeynin waxaan u maleynaa maskaxdeeda ma ku filnee istaalkaas u direena dhag warqada lagu diray maxaa waay marka aad dhahdo Soomaha adi afad ma taqaan salwile waa lagu caawinaa tag ha ku degdegin ha sirmin qaado warqada abukaataada u keen ama la taliyahaada ama qofka wakiilka ka ah warqadii qofka wakiilka ka ah wuxuu ku leeyahay dadna waa la caawiyaa oo xaquuqdoodii ayaa loo raadiyaa dadna waa la wala oo kaniini ayaa la siiyaa aqiiran kan way u dhintaan sida hadda gabar walaasheena oo dhimatay marka laba aday ku dooronta waad baxaysaa qof dhisan marka tahay ma iswaalaysid waad u tagaysaa qofka taad u sheegaysaa waxa leedahay maxaad iga caawinay marka ma saxiixayso waxba marta inaan ku caawiyo markii lagu dhaho ay kula soo boodo eragaas waxaad leedahay faanta ay fahansii marka hore saad igu caawinay sidaas ها
ama wayba ku aamusta sidaan ani arko kale hay ii sheeg waxa qabatay ii sharaxaadii ayaa lagu sharaxay markii lagu sharaxay ayaa marka isla markii hala soo boodin dagaal iimaana waalan iimaa may stage siyaasadda lagula dheelay tan ka weyn adiga dheel sida adiga lagu cisee lagu xaqiray mid ka sii weyn adiga oo xaqir qofkan tartiibtaada bini aadam waa qofkan haddii bini aadamnimo ay isugula dhaqmeen marka waxaa leedahay maya ee anigu uma baahneen in layla hadlay mana waalni in layla hadlana muu baahneen xaquuqdayda raadsanaya xaquuqdayda iyo xaquuqda caruurtayda sidee baan ku helaa dawladdu waa dawladii i keensatay oo bini aadamnimo ii soo sharaftay dawladda iyo kamuunka ani haysto ayaga noo dhaxay anina dawladii ma aqaan meela u maray processna ma ka saayay iraadi journalist iraadi TV codkaada fur cabsida kugu jirta mooji ha ooyin ha soo oranin qof Soomaaliya maashi waalida la idir maya waalibis maaha meeshu labayta meeshu dadna waa laga caawiyaa dadka la hadla dadna way caawiyaan qofkan dhibaato loo geystay xaquuqdiisa lagu tuntay sharcigan wadankan ma qabo qofkan shal markii la soo qaaday sharci bini aadamnimo u soo qaadanay qofkan haddaan xaquuqdiisa loo soo celin hal iska jiro qof marka saasna way ku shaqeeyaan sidaan dhagarta ah oo aniga igu dhacdo kalena oo bala rabo riisad in laga helo ama cadeen madaba cadeen la leeyahay qoftan waa waalanta iskuma filna ilma ma heen karto laga raba moogta waa la sheey sida cunugeyga lagu dhaho kale aniga tii cunugeyga lagu dhaho adinku cunugeyga aad ka aragteen ka bacdi markuu cunugeyga uu arkay YouTube waa ama kaaga hooyaday waatana way caafimaad qabtaa inta saaraadinayay beena ii sheegtay oo saadu waa arka gaxin caruurtay wiilkayga gabadheed tii cunugeygi anigoon ba ilaabin oo la ama kaagsan ayaa aniga weel la igu day oo liiri horta say wax u dhaceen waa in dhibaato ku gaartay dhibaato ima gaarin sharciga safari ma ka weyni sharciga Sweden ma ka weyni reegalka oo la igu keeno dawladnimo ma ka weyni reegalkiyaan ku jira dhibaatana ma igu dhicino tee masiibo ilaahay ila soo darsiye ayay noqotay in gurigeyga cidloodo alxamdulillah allah subhanahu qadirka adoonkiis ana hayaan u samraaya on sugaya kasal gaaraya intuu itixaamka ilaahay itixaamayo intuu la egyahay bas wax cusubna maaha waa wax bari adig kugu dhici karo waa wax walaalahay hortay ku dhacay waa wax gadaashay dhacay hadda shalay iyo maanta 3 qof aan qabto Soomaali cunugero 3 jir sharciga cusub oo madaxtii woona saamee 3 jir la wareysanooya dhibaata imaatay gabdhii waa laga wada arursaday gabar kale xatii cudura ku soo boodo degdega marka adinka tartiiba sheekadan dadna kamuunana waa kamuuna fiican oo nasiib leh dadna intii laga qoro ala wala istaal la geenayo markaasa qofkii mid labaad inta badan hadda taariikhiyada oo gabdhaha dhinta iyo dadkii iiga sheekeeyay iyo dhibaatadii aan arkay iyo waxa ugu darnaa ma taqaana mid ugu darneed ma taqaana qofku dhaho kale example maxay ahayto kaligeed dadkii ay ka qarsatay war dadka kuwaalay xagga iska dhig laakiin adigu waxaad suubsaa 2 qof 3 qof suubso 3 qof iyo 2 qof oo suubsatid waxa ku suubinaysa ama walaalaha ama familkaada iyo dadka abukaataada iyo dadka sharci yaqaanka ah qofka kale warkiisa ha qaadanin war aan ku anficin oo aadan reegalka wadanka ka baxsan ha qaadanin qof aan wax ku dhaaminayo wax kuugu dheela maadaama maskaxdaada aysan fadhin oo markaas aawirsantaa barbalayna la darsay is ilaalin kartid ilaahay ku xafidee mid labaad marka oo jirto waxay tahay anigu midaan kula rabo waxay tahay adiga Allah ku xafido ani sida ilaahay xafiday anigana Allah ay xafido hobsaadiya badan aan galay dhag abukaatayga iga qabtay hageli hobsaadkas dhag la taliyayga iga qabtay hageli hobsaadkas ama wax si maya dhag weer badan dhab marka kaliga marka fududa ama marka isdhiibto
dabinkiyaa ku dhacay maxaa lagaa rabay way xanuunsantaa ilmo ma hayn karto 3 naagood aa ku gardaadinooyo waa lagu gardaadina adiyaa u garbaysay marka kamuunkii adi ku necbaabaa u garbaysay dabadeedna markaasaa waxaa lagaa qoray inaa waalan tahay adaa banaanka cilaa iska dhiibay garoonka adi la isku soo riday laaksda adi ilaahay tala saartay oo tasbiixda badsatid oo aad rabbigaada tala saartay markaa u tagaysidba wax kastoo lagu keeno ilaa haddaa tira wax walba maya aadaada feel waay ma dhihi kartid wadanka aan joogno waxyaalaha qaar waxa warqada markii lagu dhiib waxaa leedahay keen ma fahmin waa la ii leesayna ama waa la ii soo aqrina ama abukaateegan tusa markii lagu arko inaa qof tugtiga ama qof taagan aad tahay ma lagugu degdegaan meel kasta iyo hobseed kasta ma lagu gelinaa laakiin waa lagu cabiraa steerinkaada inay wadwadaan way isku dayaayeen inta badan walaalaha ugu badan oo ilmaha laga qaatay oo kliniga la siiyey oo akhiiranka qaarkood markii la celin waa la dilayna ilmaha la ilagaa dishtay wallaahi suma wallahi ilmahaada u daneen adiga allahaada ku xirnaa iskriifka iska ilaali meesha lagu geysanayo oo lagaa qorayo ha yeelin ka dheerow haba u dhawaanin waxaan ku leeyahay haba u dhawaanin dowladda aad adigu markaas la joogto weydiiso amnigaada ayadaa shalaba kafaarad qaadee in aad waddo aad u marto ha daalin sanada ha ahaato dowladda mar unbay ku caawineen mar baa runtaadu ay imaanayo oo nila soo dhexgalaa adiga kamuunka dhibkaada maxay tahay mar baa lagu dhahaa midda kale waxay ku leeyihin soomaalida ha hadlin hee maxaa dhacay dowladda waa dowladdii i keentay waa dowladdii i kafaarad qaaday haddaanan dhihin aniga qaladaan fahansanahay qaladaa liiga kiin fahansiiya dhibaata i haysato xaqaygaan u baahanahay war xaqdarra ilmahayga la iiga haystaa aduu faalmaada gelin dowladahan horumarayna inta badan xaquuqda bini aadanka inay aad u fiiriyaan ayaa ka muhiimsan wax kasta oo lagu sheego cidnaha aaminin sheeka soomaalina xagga dhigaaba ku dhaani qof sharci yaqaana layla tasho hadduu ehelkaada yaa qofka kuwaalaya ka fool jignaaw markaas kulushahana xaaraaradda aa ku jirto dad kaa bixin karo la raadso isdeji tasbiixdaada akhriso xaaladaada deji kabacdi go-aan gaar waxaan kaaga digayaa haddaa taa hooyo soomaaliyeed ama aaba soomaaliyeed oo ilmo lagaa qaato inaa isdejiso kala hubsato waxaad xaq u leedahay waxaad xaq u leedahay markastana waa lagu handada is ilaali isdeji السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبسكرايبك لايك شيرتا dad adaan kuuga ahayn kor iisii darajay waana ku mahadsantahay fiirsashada ay fiirsatiin aadaan iniga mahad celinaya